war-saxaafadeed ka soo baxay hay'adda qaramada midoobay ee Unicef ayaa muujiyay sida ay uga walacsan tahay falalkii isugu jiray afduubka iyo dilkii loo geystay 7 qof oo shaqaale caafimaad ah iyo qof kale oo rayd ah oo ku sugnaa xarun caafimaad oo ku taala tuulada Goloole ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Unicef ayaa dhacdadaasi sheegtay in aan la aqbali karin dilka shaqaalahaasi isla markaana ay tahay mid xadgudub ku ah dhanka sharciga caalamiga ee arrimaha bini'aadanimada iyo habdhaqanka caadiga ah. Waxaan ka naxnay afduubka iyo dilida 7 shaqaale caafimaad ah oo joogay xarun caafimaad oo ku taal koonfurta Soomaaliya. Bartilmaameedsiga shaqaalaha daryeelka caafimaadka ayaa si weyn xadgudub ugu ah sharciga caalamiga ah waxayna u horseedi kartaa dambi dagaal. weeraradan foosha xun waxa ay faragelin ku hayaan ilaalinta asaasiga ah ee caafimaadka iyo in dambiilayaasha la xisaabtamo ayaa lagu sheegay war ka soo baxay Unicef. Warka Unicef ayaa intaasi ku sii daray shaqaalahan caafimaadka waxay ahaayeen geesiyaal waxa ay bixin jireen daryeel nafo lagu badbaadiyo carruurta iyo qoysaska.